waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka reer Somaliland gudaha dibadda runtii in la isu sheego mar walba wax la og yahay qurux badna waxaan dhowr jeer warbaahintan ka sheegay wax jira waxa aan maanta u sheegayaa dadweynaha reer Somaliland meel joogaanba in dalkan guud ahaan dalkan dadweynuhu leeyahay hadday sharci tahay dadweynaha leh hadday dhul tahay dadweynaha leh hadday hanti tahay dadweynaha leh wax kasta oo dhulkan dul yaala ama se lagu dul hayo bulshooyinka reer Somaliland baa leh markay caynkaa tahay bulshooyinka runtii maamulada ka jira iyaga ayaa leh haddii yihiin qaar la doortay iyo haddii ay yihiin qaar la magacaabayba bulshooyinka dalkan ayaa leh haddii ay garan weydo mashraca u dambeeya lagu soo noqonaya inta u dambaysa ee lagu soo laabanaya iyaga inta u dambaysa ee lagu soo laabanaya waa bulshooyinka marka anigu aan maanta ahay xildhibaan golaha deegaanka ah dibadda Burco aan ahay sharcigii aanu runtii ku shaqaynaynay dastuuriga ahaa lawaa oo waa la laalay maaha markii koowaad aan sheegayo waa la laalay waa kii runtii dee lagu kala dambeynayay ee maalinta maanta haddii bulshadu lahayd ee aan wax ugu haynay kii waa la laalay ma jiro hantidii ay ummadani lahayd maanta si la doono ayaa lagu takrifalay si la doono baa laga yeelaa sharci runtii maanta lagu ilaaliyaana ma jiro cidda runtii anigu aan maanta leeyahay waa dambilaha koowaad waa bulshada runtii haddii aanay waxna la qaban keliya wax ma qaban karo hanti dhowrkii guud lawaa waxuu noqday runtii wallaahi waxaan ku sheegaba garanaayo howlgab shaqadiisii ka seexday oo runtii in yar loo tuurayo intaa yar u dhursada qaasuu noqday waanu u yeedhnay wuu noo waayey waa hanti dhowrkii guud ee dalka waa ciddii koowaad ee runtii loo igmaday inay ka mas-uul noqoto hantida ummadda nuu inwaa labadaas sano iyo sayidkaas waxaanu baryayna oon lahayn waanu intaa ku qaylinayna noo qaalibaanu lahayn dhul yar baa halkan laga siiyey in lacagaa loo tuuraa ma aragno waa hay-addii loo igmaday ilaalinta ummadda hantideeda waa ciddii runtii maalinka maanta aanu u warrami lahayn ee dabagal samayn lahayd ee wixii jiraba ogaan lahayd ciddii runtii markaa dambiile ah waa ciddii runtii dambiile ah loo igmaday in wax ka qabato nuuinawaa waxaan leeyahay dowladda kulmiye marka ugu horeysa ha kala baxdo faraxa haddii wasiir tahay iyo haddii ay cid kala tahayba ha kala baxdo shaqada golayaasha deegaanka degmooyinka dalka way faraha kala baxdaa waa in la helaa hanti dhowrkii guud waa in kaana la helaa oo cid shaqaynaysa oo hawshii ku filan waa in la helaa waa in golihii baarlamaanku shaqeeya oo xeerarka runtii qaarkood aanu uba taag weynay xeerarka qaban kar weynay waa in dib wax looga qabta waa kuwan horu sheegayey waa xeerka runtii haldooriga ahaan jiray ee iminka tuuteerka laga dhigo kale tusaale ahaan ka golaha baarlamaanka ugu cabanayna runtii xeerkaasi waxaa la geeyey wuxuu keenay xaalad runtii aan wax qabad badan lahayn oo aanan ku shaqayn karaynin
وأنا حبشتي سمك شيرينو runtii hantida imika maqan xadad ma laha haddaan sheego tii u dambeysay imika bishan imika aynu ku jiro ee maanta 29 ah bisha dhan odayaal baa xidhnaa odayaashaas waxay ku xidhnaa waxa ahayd hanti ay leeyihiin lagu haystay jiilka dhexe ee Burco ayaa lagu guray waa odayaal runtii aad waaweyn oo da'ah oo qaarkood xanuunsanayaan oo aan la xushmaynin hantidoodii marka laga qaadana waa la soo daayay waxaa jira dhul fara badan oo dowladdu lahayd oo la iibiyey imika hadda la iibiyey oo ka dambeeyey Sheekh Bashiir Fogaaye aad uga dambeeyey baa la jira oo imika la iibiyey qaar gacanta lagu hayaa baa jira imika tusaale ahaan odayaasha la xidhay rag ku jira waxa kamid Cabdullaahi Qorax oo masaajidka Al-Raxma dhulka ku wareegsan oo runtii uu isagu lahaa mulkeedii haystay isaga iyo inankiisa baa la xidhay dumar baa xataa la xidhay iyaguna antileelka ah halkaas wuxuu xidhnaa dhowr 20 cisho ayuu xidhnaa in warinta dawladda joogaa dhulkii uu lahaa waa laga qaaday xaqada waa laga qaaday dhulkii dhamaa ee ku wareegsanaa masaajidkaas ee ilaa iyo kasoo horjeedka saldhiga dhexe oo baqarada saaweegaya wareega saaweegaya ilaa iyo soo jeedka xaggan ee bari wareega dhan dhulkii ahaa waa la gamcageliyey wax la boobay oo dadkii lahaa laga boobay iyo wax yar loo tegay noqdeen runtii haddii aan shicibka iyo maamulada runtii la doortay iyo kuwa la magacaabay haddii aan la isugu tegin oo aan arrimaha runtii wax laga qabanin oo siba shicibku aanu fadhiga ka kicin oo aanay dhismo shicib helin dhismo bulshadu runtii imika qaabkan ay tahay qaab runtii wax lagu qaban karayaa maaha waan qabyaalada la iska daaya waan shicibku runtii dan guuraa waa in sidii qaabka isugu xidhmayaan ay danle u yihiin waa in dib lagu dhisaa waan arday la dayahay waan arday la noqdaa waa in baamishku la dayahay waan baamishku wadada la yeeshaa ururo waan ururo la yeeshaa waa in maamulo bulsho jiraan waa in haddii ay tahay dhaqaatiirta iyo haddii tahay ardayda iyo haddii tahay macallimiinta iyo haddii ay tahay bulshada noocyadeeda kala kaanka ah waa inay yeeshaan ururo madax bannaan oo ay leeyihiin oo leh guddoonadaas waa inay sii yeeshaan dallado waa in dalladahaas waa inay matalan bulshooyinta reer Somaliland waa inay dalladahaas la xisaabtami karaan maamulada gacanta ku haya dalladahaasi waa inay la xisaabtami karaan guddoonada dawliga ah ee shaqaynaya ama ha noqdeen qaar la magacaabo ama ha noqdeen qaar la doortay bulshadu qaabka loo xisaabtanto maamuladeedu waa sidaas siday wixii qaladihii jiray diidan tahay dee ku dooda ee wax kaga qabata waa qaabkaas waxaan kusoo gabagabeynayaa bulshadu haddii aanay toosin oo aanay wax nala qabanin dayac fara badan baa imanaya wax badan baa imanka dayacan wax badan baa imanka meesha ka maqan bulshadu ha toosto oo wixii ay bulshadu lahayd hoos ha u eegto oo cidda hadlaysa ha taageerto oo bal waxa laga hadlayo runtii dub ha loo eego oo siiba inta wax baratay ee waxbarashada runtii kullu leh inta aqoonta leh inta culimada ah bal waxaan ka hadlayaa ha la eego aad loo eego waxaan ku soo gabagabeynayaa waan leeyahay golaha deegaanka degmada Burco haddii aanu hawlihii loo igmaday fadhiga wakicin waa loogu iman meesha waa loogu iman